السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود yar ku soo dhawaada channelkeena caadfay. Maanta waxaynu eegi doonaa xanuunada ku dhaca shakhsiyadda. Haddaba inta aynaan u gudbin xanuunada ku dhaca shakhsiyadda, aynu isla fahanno su'aasha ka horreysa ee ah waa maxay shakhsiyaddu? Shakhsiyaddu waa fikir, waa dareen, waa dabci taasoo qaabaysa qofnimada qofka. Haddaba shakhsiyadda qofeed waxa saameyn ku yeesha saddex arrimood: khibradda uu haysto, deegaanka uu ku nool yahay, iyo hiddaha waalidkii ama dhaxal waalid. inta badan xanuunada ku dhaca shakhsiyaddu waa kuwa ku yimaada fikirka deegaan iyo dhaqan ee lagula dhaqmo qofka ka hor inta aan la asiibin. sida caadiga ah xanuunada ku dhaca shakhsiyaddu waa 10 nooc sida ay caddeeyeen culimada cilmi nafsigu, waxaana ka mid ah antisocial personality disorder, avoidant personality disorder, borderline personality disorder, dependent personality disorder, histrionic personality disorder, narcissistic personality disorder, obsessive compulsive personality disorder. haddaba maanta waxaynu eegi doonaa mid ka mid ah 10 nooc, kaasi oo ah antisocial personality disorder. Antisocial personality disorder waa xanuun ku dhaca shakhsiyadda kaasoo qofka ka dhiga mid ka go'a bulshada inteeda kale ama ka soo horjeesta nidaamka togan ee bulshada, waxaana sababa inuu qofku yaraantiisii la kulmo daryeel la'aan dhinaca dareenka iyo iska indhatirka ka timaada dhinaca barbaariyaashiisa sida waalidiintii. astaamaha lagu garto iyo wakhtiga uu la soo banbaxo. sida caadiga ah waxa uu qofku la soo banbixi karaa astaamahan marka ay da'diisu tahay 18 sano iyo wixii ka weyn. astaamaha uu la soo banbaxo waxaa ka mid ah sharci jabin, inuu been sheego, inuu waxado, inuu u falceliyo si qayaxan oo diidmaa, inaanu ka fikirin naftiisa. haddaba cilad shakhsiyeedkan waxa ay qofka u horseedi kartaa dhibaatooyin caafimaad darro oo dhinaca caafimaadka maskaxda ah. sida ay daraasado badan muujiyeen, waxa uu qofku la kulmi karaa xanuunada ay ka midka yihiin niyad jabka ama depressionka. daaweynta ama dabiibka. sida guud xanuunkani waxa uu leeyahay la tacaalid, laakiinse ilaa hadda looma hayo daawo rasmi ah. daawooyinka lagula tacaalo xanuunkana waxaa ka mid ah psychotherapy oo ah dabiibka nafta taasoo qofka ku caawisa inuu u fikiro si togan. behavioral therapy ama dabiibka dabeecadda waxa ay daawadani ka caawisaa qofka inuu maamuli karo cadhadiisa amaba xanaaqiisa, isla markaana uu keensan karo ama uu isku dayi karo inuu barto dabeecad wanaagsan oo caafimaad qabta. family therapy ama in la baro dadka gacanta ku hayo qofka cilad shakhsiyadeedkan qaba sidii ay ula dhaqmi lahaayeen. haddaba waxay iga afeefa daawade adiga iyo aniguba ma nihin kuwo go'aan ka gaari kara rasminimada xanuunkan, laakiinse arrintaa waxaa go'aamin kara uun dhakhtar dabiib nafsaani ah ama professional clinical psychologist ayuunba arrintan go'aan ka gaari kara, ee ma aha arrin si fudud uu qof u go'aamin karo inuu qof qabo xanuunadan xagga sare kusoo carbaabay. way mahadsantihiin daawadayaal.